Assalamu alaikum YouTube. Hey, Malafiyan. A single mom. I am a single mom, so I could only talk about that, okay? Marka waxaan rabay maanta inaan meeshan aan usoo galay aan ka hadlo inay tahay single parentska waxa ay galaan ma nin haada ma naag haado waxa oo ay keligood ku ah ama keligood ay maaragtay meesha u joogaan oo ay keli ku yihiin oo aan cidna la fahamsanayn, okay? So wallahi been midin sheegaya, life is hard in America. dadkana ma noo ogo, cidna ma noo ogo, annaga la isku og. Hooyaa tahay aniga, for example, anigana nafteeda ka hadlo waayo. Hooyaa tahay ilmihii subaxii iskuula u wadaysaa, waad ka soo qaadaysaa, basaskii caalim u shaqaynayaan, adigay ku taalaa, cuntadii markay noqoto adigay ku taalaa inaad u samaysid, gurigii markay noqoto adigay ku taalaa inaad guriga clean garaysid. On the top of that, health insurance-kooda Maraykan maku cover garaynayaan. Waxaa lagu leeyahay you make too much income, so health insurance-ka inaad adiga la imaadid waaye. oo anaga Maraykan health insurance ma naga bixiyo, aan ahaanteeda ka hadlayo, cause waxay u dhahaan income badanaa samaysaa. So gurigii ayaa kuu yaalo, oo gurigii oo ah inaad renewal aad ku samaysid, wixii guriga ka jabay oo kale aad samaysid, wixii oo ilmaha. Wallahi been midin sheegaya, weekend aan ku jirno maanta, weekend it was tough for me. It's a lot of weeks that is tough for me, but this week it was tough for me wallahi. maxay tahay ilmaha iskuulkooda laga soo wacay, wiilkii gabadha oo middle school ku jiro ayaa laga soo wacay, oh they missing a shots. Okay, waa orday iskuulka soo wad, dhakhtarkii geey, dhakhtarkii examkii ka sameeyaan, maxay tahay all of that stuff. Examkii I have to pay, because anyway, you know, it's not maxay tahay medical ku caawinayo, America ku caawinaysa ma jirto, waxaas moogtahay. I have to pay labadooda $80 deductible inaan u bixiyo waay, you know. So I paid it $160. I did that. Wiilkayga wuxuu dhahay, Mama, I'm going to take a shower, blah blah blah. I said okay, no problem. Baadka meesha laga furo oo biyaha maad ka socdaan sidoo ku jabiye kala garo. Waxaan ku dhahay hooy maad claim garays, ma korkaad ka kortay waa yaabanahay. korkuu ka jabiye waa busqusha koru ka jabiye. maad koraysaan ku dhahay meesha say u jabisay ilaa pipe-kii dhan ayuu inside ka jaray. handyman-kii waa handyman-kii ha imaado, hala sameeyo, waa $200. showerkii oo downstairs hala jabiyo ka dhash. showerkii haddana hala imaado, handyman-ka waa handyman-ka haddana ha imaado, showerkii ha sameeyo, waa another $165. acuudu billahi min ashaytaan rajiim. maxaa waxaan oo dhan ay tahay madax xanuun waay. haddana at the same time you gotta be positive. Above all of that, you gotta be positive, because you gotta remember you are a parent. Even haddaad haysanin qofkii kale oo kula ahaa ama aabo ama hooyo oo ku caawinayo, ina adigii aad isa saartid weeyaan mas-uuliyad oo gooniya, maadaama adiga ay waxa dhan kuu kooban yihiin. dadkii aa ku haray oo adduunyada kale kugu joogay oo dadkaagii ahaa oo raba inaa wax loo soo diro bili wax. maxaa bili wax laguu soo diraa? No, I can't do it. I'm only one person. I can't do it. It's too much going on. What do you mean? I'm only one person. How am I going to do all of that? You got to be positive. Go through that. Aniga always waxaan ku hadlaa oo isku maaweeliyaa, there's a light in the end. So that's how I treat my YouTube now, okay? So I know now I'm not 1,000 subscribers. I don't have that. But the way I do it is one day at a time. We're going to get there. And this is going to be my second income. So I could
fully, comfortably live on my own. Yes, I have my job, my 9 to 5 job. I'm not going to diss that. That's my job. That's how I take care of everything. But also, I'm going to do my YouTube. And that's why I'm here, guys. Okay? I don't need you to give me money. I don't want you to give me nothing. I just want you guys to subscribe and, watch my videos. That's how I'm going to make the money in the end. That's how I'm going to get my watch hours. I needed 4,000 watch hours, and I need 1,000 subscribers. And understand that I am a single parent in the end of these days. And inshallah, I always believe, inshallah, everything will be okay. I have one kid that's going to college. I have to come up with their money. I have to pay that. I have to take care of that. And on the top of that, day-to-day issues. When it comes to insurance, when it comes to college money, when it comes to food, when it comes to housing, when it comes to all of that, I'm only one. And I need to come with it. And I'm not complaining, but that's why I'm doing what I'm doing. And if you like me, don't complain. Don't do anything else that is against what you're supposed to do. Or I'm fighting with this light, guys. And you know what? I'm going to give up with this. But anyway, basically, I want to encourage mothers, and I want you guys to go with me, and we need to go and help each other, support each other, subscribe to each other. And wallahi, especially my ummadeyda oo Soomaalida ah, gabdhaha Soomaaliyeed oo ilmo haysto oo aan caawimaad ku haysanin, inay soo follow garaysiina rabaa, seriously, and we could do it together, okay? And wallahi, we're gonna happen. I know you guys are hard workers, and I know you guys work so hard to make sure that your kids are supported. But instead of asking for a help, somebody that don't want to be in your kids' life to help you out, or complaining or yelling or all of that negativity, shut it off and go to YouTube, and that make your second job, okay? And that's what I'm doing, and I want you guys to come with me. Love you guys. Bye.